بسم الله الرحمن الرحيم walal ku soo dhawow kanaalka socdaal bulsho barnaamijkani haddii uu ku cajabiyey like share iyo subscribe-ka waa xaggeena fikirkaagana waa inoo muhiim ee inoogu reeb commentiga si aad inoo dhiirigelisid baahida loo qabo iyo ka faa'iideysiga ay ka faa'iideystaan sixiroolayaasha labaduba way badan yihiin fanniga maanta aan ka hadlayno waxa weeyaan daaweyntiisu waa fanniga ugu sahlan dadka sixiroolayaashii marka isticmaalayaan waana fanni aan shuruud fara badan u baahnayn markuu sixirooluhu baabka uu wakaakibayo ee uu xidhayo fanniyada qaar baa shuruud fara badan iyo waxaynu ku soo tilmaannay riyaadiyaad iyo qofku inuu bannaanka u baxo oo muddo uu bannaanka ku noolaado oonta xoolaha uu ka soomo oo howlo badan uu galo laakiin midkaanu uma baahna shuruud fara badan waana fanni isticmaalkiisu aada iyo aada uu shaa'icu yahay meelo badanna laga heli karo oo loogu tago meelaha magaalooyinka yaryar iyo tuulayaasha aan xajmigoodu weynayna rag baaba ku shaqaysta oo dadka baad kaga qaada waa fanniga la yidhaahdo fannu rabt in wiilkiiyo gabadha la kala xidho siibana inta badan waxay adeegsadaan habeennada arooska nimanbaa farsamadaa ku shaqaysta oo haddii alla ka dhigo labada dhallinyaro isguursanaya haddaanay isaga soo marin oo aanay siinin haddii alla ka dhigo wuxuu uga baahan yahay adduuna wuu ku kala tuurayaa oo haddii alla yidhaahdo wuu ka carqaladaynayaa waanu kala xidhayaa labadooda isagoo isticmaalaya fanniga rabtiga waxaanay ku qasban yihiin dadka tuulayaasha iyo miyiyada ku nool iyo dadka maxaanku dhaa ninkaasi uu la joogo inay xoolaha iska bixiyaan haddii ay bixin waayaanna habeenkaasu habeen baas buu u noqdaa mararka qaarkood waxaa dhaca in nin xaasas badan leh xaasaskiisa qaar ka midihi ay damcaan inuu u gaar yeelo iyada kuwa kalena uu ka hor joogsado nimanbaa saa ku shaqaystoo loogu tagaa oo ay leeyihiin ninkaygii waa iga sii jeedaa haddii alla yidhaha baryahan waan garan la'ahay ee gabadhii kalea iga jiidatay dabadeedna adduuniya wuxuu ku xidhaba intuu ka qaado hawshaa gala oo ay dhibaata markaa dhibaatooyinka aynu sheegi doonna ay ka dhacaan baaddaana way ka guraan marka baabkan waa baab baahi badan loo qabo in la aqoonsado oo dadku ay cilmi u yeeshaan marka noloshay ka mid tahay dee guurku ilaa xaawiye aada ragna waxaa ugu daranuun marka xaaladdaa firaashka ay maxaanku dhaa musaaracadda markay bilaamayso uu sooba rogan waayo oo meelaha had iyo jeer ugu dhibaatada badan yaalaana hadday taasu dhacdo dee ninka macno weyn ma sameeyo cagtaa lagu toosinayaa lamana dar yeelo haddii alla yidhaahdo muqmadan looma gooyo haddii alla yidhaahdo caawimana lama siiyo waa hawl aada iyo aada u badan in laga hadlaana noloshay ka mid tahay waa qaab dee nolosha ka mid ah iska daa inay dee culimmadu ka hadashee xataa dadkan gabya baabkan isku daya inay culayskiisa wax ka tilmaamaan oo ay ka hadlaan oo nin shaaciraba wuxuu odhan jiray wax kalaa lagaa caawiyaa cidi ku siisaa calankaa jab waa dhoombirkoo caajis kaa galo marka haddii dhoombirka caajis kaa galo lagu tirsan mahayo ciniin baa tahay marka inta badan ibliiskuna halkaasuu haddii aan la yidhaah ka dabagalaayo
واتي حديث كي صحيحة النبي كانوا كور رميه maalin walba warbixin baa la siiyaa shaytaanka weyn ee carshigiisu biyaha dul yaalliinii bad ninka yani jin kasta shaytaan kasta oo qariinkii la raaciyay ambiya darajo weyn ma siiyo waxa ugu sareeyo dalacsiya waa ruuxa laba qof oo muslimiina oo wada noolaa oo isqabe kala dira kaasuu madaxa u salaaxa kaasuu yidhaahdaa waad igu bannaantahay kaasuu yidhaahdaa waad igu bannaantahay marka muhiimadda mawduucu uu leeyahay baan u soo qadimay inaan ka hadalno baabu rabt rabtigu marka ay ka hadlayaan aqoon-yahanada fannigan ka hadlaa waxay yidhaahdaan huwa an yacjiza alrajulu calaa mujaamacati ahlihi wa ataaqa maa siwaha aw an yacjiza biaxadi zawjaatihi maca qudrati mujaamacati zawjatiha alukhraa rabti waxaa la yidhaahdaa waa af carabi ahaan waa wixii oo la dabro ninkii baa laga dabrayaa sawjadiisii ama sawjadii baa la dabrayaa oo ninkeedii laga dabraya waxay yidhaahdeen wuxuu awood u waayayaa ninku sawjadiisii xalaasha ahayd inuu u hamoodo ama uu musaaracadii iskaga celiyo halka haddii maalan meel kale uu isha u taago ama baab kaleba qalbigiisa uu ku soo dhaco awooddiisii ay shaqaynayso waxaa kaloo dhici karta bay yidhaahdeen inuu laba xaas leeyahayoo midna aanu u hollanaynba midna uu libaaxyeynayo hadday xaaladdaasi jirto cillad baa taalla meeshaas meel ay ka timid ilaahay garanayo oo la ogaan karo marka lasii dabagalo marka rabtiga noocaasa ragga wuu ku yimaadaa ma aha mid ku timaada abuurta physiologiga ama abuurta qofka bini aadmiga jasadiga ah iyo muruqii iyo maxaanku idhaahdaa systemkii hawshan qaban lahaa ma ciladaysna oo marka uu meel kala aado waa kan shaqaynaya marka uu xagga sawjadan laga xidhay uu xaggeeda u soo jeestana maba soo roganayo amaba waxaa dhacda inta uu istiilo in awooddii ay kacdo dabadeedna marka uu hawshii fuli is yidhaahdo uu waxba iska waayayo way dhacdaa masaladaa waxay wadaagaan meelo badan inuu qofku awoodda iska waayo ama ay biyuhuba hore uga soo daataan dadka qaadka cuna qaarkood dadka qayila qaarkood hawshaasi way ku dhacdaa oo intay istiilaan oo haddii alla yidhaahdo ay is yidhaahdaan hawsha waad qaban kartaa marka ay siidhiga loo afuufo uun hawshii ay socon weydo inta badan dadka qaadka cuna qaarkood sidaasi way haleeshaa marka waxaan taa u leeyahay xaalad kasta oo ninku marka uu musaaracada isu diyaariyo ay hawshu kala dhacdo inaanay wada sixir ahayne qofku isticmaal uu mukhadaraad isticmaalay ama kiniin isticmaalay ama howlo kaleba ay ku dhaceen taas way keeni kartaa qaabka uu u nool yahay ruuxu way ku keeni kartaayoo waxay yidhaahdaan ruuxu hadduu maalintaa kambadhuudh uu kambadhuudhka badiyo kambadhuudhku waxa weeyaan intoo lugaha dhulka la saaro deedna qofku uu kuududsado oo badhaha iyo cidhbaha uu isa saaro kuudud baa laydhaa waa taariikhdeenna aad bay ugu badan tahayoo tajribadaasna soomaalidu aad bay u taqaanaayoo waxay idhaahdaan kuudud waa korma rag kuudud waa korma rag hadduu qofku kambadhuudhka ku shaqeeyo oo kambadhuudhka badiyo awooddiisa raganimadu yaalaa ma fiicnaato oo way jilecdaa waxaa ka mid a waxyaalaha had iyo jeer awoodda raganimada hoos u dhigaan sixir ahayn qofku hadduu ciirdhan yahay hadduu qofku ciirta aada u isticmaalo geela qooqan baaba lagu shubaa ciirta waxyaalaha had iyo jeer ragga ka dila maxaanku idhaha awoodda raganimada ee la hubiyo waxaa ka mid a caanaboodhaha caanaboodhaha laftiisu haddii alla ka dhigo awoodda raganimada haddii uu ninku caadaysto inuu cabo caanaboodhe awoodda raganimada wuu hoos buu u dhigaa ama surcatul qadfi baa yimaado biyuhu hore ayay uga soo dhacaan marka xaaladahaas caadiga ahina way jiraan xaaladdaas sixirka ee rabdiga la yidhaahdaana way jirtaa marka
raggu sidaasaa ku dhacda oo rabdigu wuu ku yimaadaa iyada oo reerka la kala dirayo haweenkana wuu ku yimaadaa rabdiga haweenku 5 nooc buu ugu iman karaa rabdiga haweenka iyo maxaanku idhaahdaa in haweenta laga xidho zawjkeeda 5 qaab ayay u isticmaalaan sixiroolayaashu 5taa qaab mid ahaan buu ugu iman karaa 5taa qaab waxaa ka kow ah rabdul manci mid ay yidhaahdaan waa dabarkii in labadan ruux ay isba gaadhaan mancigu waa diidmadii inta badan waxaa dhacda reerku markuu isku cusub yahay gabadha haddii loo dhigay sixirkii tafriiqi ee rabdiga la odhani waxay isku maranaysaa labada lugood towreed iyo injiil hadduu akhriyo ma kala bixin karo quwad khayra caadi oo tii gabadha ka xoog badan baa shaqaynaysa iyaduna ikhtiyaarkeeda waxaan ku samayn maysa ee shaydaankii la soo adeegsaday ee sixirka loo soo dirsaday ayaa wuxuu isticmaalayaa gabadhan inuu ka qaado dareenka dabadeedna labadeeda lugood uu isqabadsiiyo waxaad mooddaa in laxaamad la isugu dhalaaliyey awood uu ku kala furo sawjku male si kasta hadduu yeelo iyadii markaa ay iswaraystaan maxaad u jeeddaa walaal aniga awooddaydiiyo dareenkayga ma ahan wax iga xoog weyn baa i jiidanaya bay odhanaysaa kaa waxaa la yidhaahdaa sixra rabti baa la yidhaayo way ku dhacdaa haweenka qaarkood taa waxaan u baraarujinayaa ragga qaarkood hadday xaaladdaa la kulmaan inaanay u qaadanin dabeecad xumo haweentu ay leedahay waxaase jira nooc sixira oo lagu kala eryayo labada ruux ibliisna uu rabo qoyskan islaamka inuu ku burburiyo xaaladdaasi hadday qoyska la kulanto markii hore reerka oo isku samaa oo caadi ahaabaa laga yaabaa gadaal dambe inay tani iman karto oo sixirkaasi intuu haweenta haleelo ay lugahaba isku marato ama ay dagaal ay ku qaado ay qanqaniinto ay xagato oo ay istifaacan iyada dareenkeeda ka imanayn marka hawshu ay maxaanku dhaha hubka la iska dhigana ay cudurdaar ka dhiibaysay leedahay waxaan anigu ma awooddayda ma ahan maxaanku dhaha waxaan anigu iska doondoonayo ma ahan xaaladdaasi way ku timaadaa qoyska xaaladahaasoo kale hadday yimaadaanna in xisaabta lagu darsado oo intaan furiin lagu degdegin in xaaladdaa culimada la tuso ayaa muhiim ah waxaa la yidhaha sixra almanci baa la yidhaahayoo haweentu iyadoon ikhtiyaarkeedaba ku diidanayn bay difaac intay kari karto oo dhan ay soo qadimaysaa waxaa jira sixri labaad oo sixra rabdigaas oo haweenka loo isticmaalo si qoyska looga burburiyo sixirkaana waxaa la yidhaahdaa sixra taballud ama tabliid baa la yidhaahayoo haweenta ayaa firfircoonidii oo dhan laga qaadaya system dhan oo ilaahay uu ugu talagalay inay labada qoys isku fahmaan baa jira woo jawaaba ay maskaxdu ka bixiso marka xaaladda firaashka loo diyaargaroobo oo mudaacabadu ay bilaabanto iyo mucaasharadu haweenta dareenkeedu inuu ka qayb qaato dareenka ninka oo haddii aan la yidhaha gacmo isdhaafay gacalnimo ka dhalaataaye maxabbada la isweydaarsado ayaa loo baahan yahay deedna maxabbadu dhinac keliyon bay ka soconaysaa haweentii wax agshanaba ma leh waxa ugu daran waxaa ka mid ah hormoonnadii ilaahay ugu talagalay inay cariyaan oo qaybtan qoysa xubinta taranka ee haweenka ee haddii alla yidhaha sii diyaarisa inay hawshu si sahlan oo raaxala ay u dhacdo biyihii oo dhan buu ka qallajinayaa hormoonnadii iyo qanjidhadii hormoonnadaa soo daynayey ayay hor joogsanayaan jimankii loo diray ashaytaanu yajri min ibni aadama majra dam shaydaanku wuxuu dhex marayaa xididada dhiiggeenna waxaanu kari karaa in qanjidhadan dheecaanka soo daynaya qoynaya xubinta taranka haweenka inuu xanibo oo dheecaankii aanay soo daynin ama maskaxda qaybtii amraysay in dheecaankaasi uu yimaado oo qanjidhkaa la yidhaahdo bituutari galaanka ee gadaashaa dambe ku yaalla oo boqorka qanjidhadoo dhan ah ayaa ra'iis u ah
in hawshani ay bilaabanto marka qaybihii ka qayb qaadanayay hawshani siday u fuli lahayd meel ka mid ah ayuu shaydaankii ama jinkii xididka raacay uu xidhayaa haddii alla yidhaahdo badhankiisii markaa gabadhii wax allaaliya wax agshana iyo haddii alla yidhaah ka qayb qaadasho ma yeelanayso taasina waxay keenaysaa niyajab ayay labada dhinacba ku keenaysaa waxaana la yidhaah sixra tabliid baa la yidhaahdaayo hawshaasina waxaa laga yaabaa gabadhu marka aanay ninkii la joogin sawjkeedii ay kelideed dareen hesho in sistamkii oo dhani shaqeeyo ilaa iyo xubintii taranku ay qoydo marka kalena waxaad mooddaa gawaan adag oo aan weligeed biyaba laga arag waxaa kaloo jira sixir saddexaad oo haweenka ay u sameeyaan oo la yidhaahdo rabta nasiif mid la yidhaah baa jira waxa weeyaan dhiig aan hore u jirin oon gadaal dambena imanayninoo xaaladda labadan ruux ee isu xalaasha ay isu imanayaan uun baa gabadhan waxaa laga faruurayaa dhiig ma aha kii caadada ma aha dhabar furan waa xaaladda zawjku uu u muraado haweentiisa ayuunbaa dhiig soo boodayaa waxaa dhacday ninbaa wuxuu ahaa shaqaale meel fog buu jiri jiray intaa uu maqan yahay haweentiisu dhiigga caadada mooye dhiig kale ma aragto maalinta uu fasax soo qaato ee uu gurigiisii yimaado albaabkaba ma ka soo galay waa kan ma ka dhammaaday fasaxii oo ma sii jeed aqalkaba ma ka baxay dhiigba ma leh waxaa la yidhaha sixra nasiif baa la yidhaahdaa waxaanay rabaan in labada ruuxuu niyadjab lagu rido waana nooc sixirka ka mid ah waana dhiig khuseeya uun xaalat alfiraashka waxaa jira sixir afraad oo haweenka ku yimaada oo ay yidhaahdaan sixra alinsidaad waa nooc sixir ah oo shaydaanku uu isticmaalayo xubinta taranka ee haweenka inuu ku gooyo cad aan birtu xataa goyn karaynin xaaladda marka isticmaal loo dhaqaaqunbay meeshiiba xidhmaysaa mar allaaliya markay caadi tahayna meeshii way furan tahay marna way gufaysan tahay una cad baa isku soo gufaynaya cadkaa haddii physiologically la eego wax allaaliya wax maxaan ku dhaha systemkan anatomiga ku jira ma ahan waa xaaladdaa firaashka unbay meeshu isxidhaysaa mar allaaliya markay hawshaas laga niyad jabana khalaas waxaa jira sixir ay u bixiyeen sixra takhwiir waa qayn inantii bikradda ahayd ee la meheriyey ee caawa la aroosay ayuunbaa ninkii looga dhigayaa inaan xuubkii bikaaraduba jirin oo meeshuba ay qalaalan tahay oo looga horreeyuunbaa looga dhigaya ficlanna iyada ma ahane shaydaan baa isku labahaya takhwiir baa laydhaa halkaasuu shaki ka qaadayaa bilowgiiba zawjku uu leeyahay aftal baa layga yibi somaad garan xaaladdaasuu keenayaa markiiba waxaa imanaya shaki la kala shakeeyo waa nooc sixirka ka mida sixra takhwiirku haddaba bal si aynu u fahamno sistamkan ee haddii la yidhaahdo tanaasulka iyo taranku wuxuu leeyahay sistem dhan oo ilaahi ah oo isku rakiban sida haddii la yidhaah habdhiskan neefsashaduba ay u leedahay nidaam dhan oo la raaco habdhiska dheefshiidkuna uu u leeyahay nidaam u madax bannaan habdhiska uu dhiigga iyo sistamkiisuna uu u leeyahay oo kan neerfuhu uu u leeyahay sistem u khaas oo hawshiisa ku qabsado kan tarankuna wuxuu leeyahay sistem u gaar ah oo xaaladda haddii alla yidhaahdo marka camaliyaadku ay dhacayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yacni istaadho haddaynu ka soo qaadanno ragga xubinta ilaahay u abuuray horta waa muruqaasina waa shaandho
waa shaandho sida maxaan ku idhaahdaa isbuunyadan firaashyadeenoo kale haddii biyo la saaro soo biyaha ma nuugaan sidaasoo kale ayuu dhiigga u nuugaa muruqaas waa isbuunyo oo kale waxaanuu ku shaqeeyaana waa dhiig maaha neef iyo hawo toona dhiig buu ku shaqeeyaa dhiiggaasi inuu ku soo dhaco xubinta taranka oo ragga iyo xubinta taranka dumarka qaybta kintirka ay yidhaahdaan isna dhiig baa ku soo dhaca marka uu dhiigga ku soo dhacayo dareenka ugu horeeya ama indhaha gudbinaya ama maqaarka gudbinaya ama xasuustaa gudbinaysa qofkii isagoo aan waxna taaban waxna arkin ayaa dareen ku soo dhacaya doonitaan ah dabadeedna wuxuu arkayaa xubintii oo kacday saddexdaa qaybood buu dareenku uu ku baraarugaa marka ugu horraysa ee dareen kacayo waxaa dhacaysa in haddii alla yidhaahdo xiniinyaha oo kale inay muud soo daayaan dabadeedna ay ku soo daraan dhiig markay dhiigga ku soo daraan ayaa isla daqiiqadiiba muudkii wuxuu gaadhayaa qanjir ku yaalla kelyaheenna dushooda surinaala la yidhaahdo oo muhiim u ah nolosheenna waaxyo badan qanjirkaasi farriintii buu akhriyayaa muudkii xiniiyuhu soo daayeen ayuu farriintoodii akhriyayaa markuu farriintaa akhriyo ayuu isna muud kale sii daynayaa markuu sii daayo ayaa wuxuu saamaynayaa maxaanku idhaahdaa haraggan madaxeenna ku jira dabadeedna wuxuu ku furayaa waxaad koronto moodo oo dareenkii madaxa kicinaya markuu dareenka madaxu kaco ayaa dabadeedna waxaa dhacaysa qanjirhkaa la yidhaahdo pituitary galaanka oo boqorka qanjidhada oo dhan ayaa isna farriintii gaadhaysa markay qanjirhkaa farriintu gaadho ayuu isna muud buu sii daynayaa muudkaa markuu sii daayo ayuu dareen wadayaasha qaybta xukunta xubnaha taranka ayuu isna farriin u dirayaa wuxuu leeyahay albaabadii ay dhiiggu ka gelayeen xubnaha taranka ha la furo marka la furo amar haddana wuxuu siinayaa wadnaha uu leeyahay kordhi dhaqaaqaaga si dhiig fara badani uu u tago xubinta taranka markaasaa albaabo badan ayaa isfuraya waxaa ku soo shumaya markaa xubintii taranka dhiig badan baa ku soo shumaya markuu dhiiggaasi ku soo shummo ayaa haddana maskaxdu waxay amraysaa in albaabadii isxidhaan iyagoo dhiiggii ku jiro xubinta ayay albaabadii isxidhayaan inta camaliyaddu socoto albaabadii dhiiggu ka soo galeen dib baa loo awdayaa mar allaaliya marka obereshinkaasi uu dhammaado ayaa si automatically ah ayaa albaabadii isu furayaan dabadeedna dhiiggii sistamkiisii buu dib ugu noqonayaa intaasoo waddo mid ka mid ah ayaa shaydaankan dhiigga raacay ee sixirooluhu soo adeegsaday mid ka mida buu hor joogsanayaa dabadeedna ma soconaysa sistamkii iyo nidaamkii loogu talagalay in obereshinka lagu fuliyo waxbaa uu kala goynayaa farriimihii buu kala hor joogsanayaa ashaytaanu yajri min ibni aadama majra dam wixii buu kala xidhayaa dabadeedna zawjkii awooddiiba iska waayaya sawjadii awooddiiba iska waayaysa markaa sistamkaasay isticmaalaan shayaadiintu maadaama ay awood u leeyihiin oo rasuulkuna inooga warramay inuu ibliisku uu raaci karo xididada dhiigga wuxuu fadhiisan karaa waaxyaha amarka bixiya ama hawsha ka qayb qaadanaya mid ka mid ah ayuu catilaya uu rikaato saaraya saasay markaa camaliyaddii ku fashilmaysaa haddaba sistamka noocaas ee ibliiskaasi uu ka shaqaynayo oo shaydaankaa sixiroolihiina uu soo adeegsaday cudur ilaahay ma soo dejiyo ilaa wa anzala macahu dawaa ilaahay dawadiisana uu soo raaciya cudur ilaahay adduunyadan ma keenin haddii uu keenayna dawadiisa wey
calima man calim wa jahila man jahil waxaan xanuuna aynu idhaahno dawo ma leh waxba kama jiraan laakiin weli aqoonteedii callama alinsaana maa lam yaclam shalay bay ahayd waqti aan fogeyn TB-da inta qaaxa la yidhaahdo in qofka la karantimeeyo oo xero gaara loo oodo oo weel gaara la siiyo oo aan loo tegine xagga dabayshu ka soo dhacday mooy xagga kale wax looga soo dhiibo oo intuu ka dhimanaya halkaa oo ku jiri jiray maantana maxay noqotay cudurrada ugu sahlan ee ruuxii haddana uu dadka uu ku dhex noolaan karo marka adduunyada tan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaaha raxiima baa ina keenay wixii inagu aynu qaladno ayaa haddana ilaahay saxaya subxaanahu wa tacaala oo wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum waxanoo cudurra ah asbaabta makhluuqay ku imanayaan oo waxay yidhaahdaan iminka maalan aidiska oo kale asalkiisu wuxuu la noolaan jiray xayawaanaadka fayraskani insaanku markay faduuli noqdeen ay daayeeradii u galmoodeen buu xanuunkii xaggaa ka yimi deedna sidaa inoogu soo gudbay la hor joogsan kari waaye saad garmaysid marka akhtaa bini aadmigu ay sameeyaan baa markaa dhibaatooyinku ay ka yimaadaan haddana xalkii baa ilaahay subxaana wa tacaala biraxmatihi ayuu ilaahay xalkiisa u raaciyay markaa sixirku waxa weeyaan waa faduul bini aadmiga qaar ka midihii ay galaan dabadeedna ay u adeegsadaan makhluuqaadka kale si ay ugu dhibaan waxaanu rasuulkeennu inoo sheegay sixirku inuu ka mid yahay 7 dembi ee lagu halaagsamo mid ka mid ah inuu yahay dawuu leeyahay markaa sixirkaa rabtiga la yidhaah dawadiisii ayaan insha allahu bilaabaynaa marka qodobka ugu horeeya ee loo isticmaali jiray qadiiman ilaa muddo dheer sixra rabtiga lagu furi jiray waxaa jira mid la yidhaahdo alxal ay carabtu u taqaano xalkaasi waxa weeye sida loo isticmaali jiray waxay yidhaahdaan masaladan aan ka warramayo waxaad ka heli doontaa fatxulbaariga sharxulbukhaari ayaa soo naqlinaya sharaxuu ku soo naqlinayaa wuxuu leeyahay ibnu xajar alcasqalaani raxmat ullaahi calayhi waxaan ka soo gaadhay ama aan ka qoray sheekhaygii la odhan jiray camaad binu shaakir oo ruwaadda bukhaari ka mid ah dhammaan ruwaadda bukhaari waxa weeyaan dad hiqaat ah oo lagu kalsoon yahay diintooda wuxuu yidhi camaad binu shaakir oo culimmadii aan bukhaariga maxaanku idhaahdaa uu bukhaari uu cilmiga ka qaadanaya ka mid ah waxaa laga warinayaa haddii ruuxu cilladani ku timi hadduu soo qaato faash kan xaabada lagu googooyo oo xaabana soo qaado uu ku shido marka uu faashkaasi dhuxul noqdo uu faashkii soo qaado dabadeedna faashkii kululaa ee dhuxusha noqday uu ku dulkaajo oo qiiqii faashku uu ku soo baxo xubintiisa taranka waxaa la tajribeeyey biidni illaahi in ruuxa rabdigu ka furmayo waa masalo qadiima la isticmaali jiray in faashka la kululeeyo dabadeedna sidaa lagu furo waxaana qoraya ibnu xajar alcasqalaani masalada labaad oo isla sheekhaas camaad binu shaakir uu warinayo oo waxaa ka soo warinaya ibnu xajar alcasqalaani raxmat ullaahi calayh wuxuu leeyahay ruuxa cilladani ku dhacdo ee rabdigani ku dhaco wuxuu samaynayaa wakhtiga guyaadda wakhtiga guga ee roobku do-o ama dayrta uu roobku do-o wakhti barwaaqo ah ayuu u baxayaa meelaha miyiga ah ama bannaanka iyo meelaha beeraha ah dabadeedna geedaha ubaxooda ayuu soo gurubsanayaa geed walba ubaxyadu wax ka soo goosanaya ubaxyadaa markuu soo gurto
ayuu dheri soo qaadanaya ama digsi soo qaadanaya ama weel un dabka la saari karo ayuu soo qaadanayaa ubaxii buu ku ridayaa dabadeedna dabkuu saarayaa hal mar markuu biyuhu isrogaan ayuu biyaha ka soo saarayaa ka qaadanayaa markay biyahaasi u qaboobaan ayuu jidhkoo dhan ku maydhanayaa biyihii ubaxyada uu ka soo gurubsaday masalada saddexaad ee uu ibnu xajar alcasqalaani uu warinayo iyana waxay ku saabsan tahay wuxuu ka soo warinayaa shacbi ayuu ka soo warinayaa waxaana shacbi ka qoraya imaamka la yidhaahdo cabdurasaaq ayuu ka soo qorayaa cabdurasaaq binu hishaam cabdirasaaq binu hamaam asancaani oo noolaa 211 ilaa wuxuu 126 ilaa 211 hijrada 85 jir buu ku dhintay shacbi wuxuu ka mid ahaa culimada uu bukhaari wax ka wariyo imaam shacbi oo isna ka soo uu ka soo qoray cabdirasaaq binu hamaam asancaani oo caalim mutafanina ahaa wuxuu tilmaamayaa masalada saddexaad ee lagula dagaalami karo rabdiga ee ilaahay dawooyinka ugu daray ummadda islaamka ah wuxuu samaynayaa bay idhaahdeen meelaha dhirtoodu qodaxda leedahay cadaah baa la yidhaahdaa dhirta qodaxda leh af carabiga yakhruju alinsaanu fii mowdici cadaah waa daad alif iyo hagaab meel dhirteedu ay qodxan leedahay ayuu aadayaa dabadeedna meeshuu marayo dhinaca midigtana wixii dhira buu ka soo qaadanayaa caleemaha dhinaca bidixdana caleemuu ka soo guranaya intii cabbaar ah dhirtaasoo caleenteeda midig iyo bidixba uu ka soo urursanaya marka uu soo urursado caleentaa dhirta qodaxda leh ayuu ku ridayaa digsi biyana wuu ku shubayaa qur'aanna wuu ku akhriyayaa qur'aanku meeshuu doonaha ka aqriyo fiihi shifaaءun linnaas wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmatun lilmu'miniin qur'aan buu ku akhriyayaa caleentii uu ka soo gurtay qodaxlayda markaas uu ku akhriyo ayuu dabadeedna waxba dab saari maaye wuu walaaqayaa marka ay ku milmaan biyihii ayuu biyihii ku maydhanayaa marka uu biyaha ku maydho biidni illaah rabdigii wuu ka furmayaa bay idhaahdeen masale in badan aa wada maqasheen oo culimmada tafaasiirtuna ay soo wariyaan sida ibnu kathiir isla ibnu xajar alcasqalaani mowduucan markuu ka hadlayo oo isna uu ka hadlayo oo iyana aada iyo aada u faaftay baa iyana jirta oo masalada afraad ah masalada afraad waxa weeyaan ee lagu isticmaalo fakr rabd in sixirkaa rabdiga lagu furo wuxuu ruuxu samaynayaa 7 caleemood oo gob ah ayuu soo qaadanayaa 7daa caleemood waa inay qoyan yihiin 7daa caleemood waa inaanay nabarra lahayn markuu 7daa caleemood soo qaato 2 dhagxaan oo sallaxan oo salbajaha aynu dhinaano dhagaxaantii luufka aynu ku ciyaari jirnay oo kale ayuu soo qaadanayaa 2 dhagax wuu maydhayaa dabadeedna caleentii buu ku ridqayaa 2dii dhagax markuu ridqo ayaa biyo halkan u yaalay buu caleentii ku maydhayaa markuu 2dii dhagax caleentii ka dhammeeyo ayaa wuxuu samaynayaa fartiisa midigta ayuu biyaha gelinayaa biyihiina afkuu u dhowaynayaa kolkaasaa wuxuu ku akhriyayaa aayatulkursiga waalqawaaqil alqawaaqil kutubtaad ku arki doontaan qawaaqil waxa weeyaan suuradaha ka bilaabma qul ayaa qawaaqil la isku yidhaahdaa qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas iyo aayadaha saddexdee ugu horeeya oo qul uxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin shantaa qawaaqisha ah ayuu ku akhriyayaa biyihii dabadeedna biyihii uu ku akhriyey wuu walaaqayaa markay kala fadhiistaan 3 jeer buu cantoobsanayaa oo uu cabbayaa biyihii sidriga lahaa wixii ka soo hadhay intuu saxni yar isku taago hadduu suuli ku maydhanayo
ayuu ku maydhan deedna biyihii meel nadiifuu ku daadinayaa hadduu meel cidla ah uu ku maydho uu ku asturmayana sidaasuu yeelayaa 2-3 jeer buu hadduu doono sidaa arrintaa ku celcelinaya 2-3 jeer ayuu sidaa samaynayaa intaasu waa intii haddii alla ka dhigo ay inoo soo gudbiyeen culimadii inaga horreysay 4 masalaba waxaad ugu tegaysaa fatx albaari ayaad ugu tegaysaa haddii ilaahay ka dhigo oo aad ka helayso mujalladka 5aad beyjka 15aad baad ugu tegaysaa haddii ilaahay yidhaahdo ama mujalladka 10aad 244 wuu ku sheegayaa maxaanku qaldin waxa weeyaan mujalladka 10aad 244 safxadaas ayaad ugu tegaysaa mujalladka 10aad ayuu sheekhu arrinkaa kaga hadlaya marka waxaa munaasib ah inaan isdul taagno fawaa'idda uu leeyahay shajarata sidr geedka gobka ah iyo fawaa'idda uu leeyahay ayaynu in yar isdul taagaynaa geedka gobka ahi wax kale kuma tilmaami karo geedka gobka ahi waa hadiya min hadiyaati illaahi tabaaraka wa tacaala waa hadiyad ka mida hadiyadaha ilaahay aadamaha uu soo raaciyey markuu arladan keenayey geedaha uu ilaahay soo raaciyey ee manfacada badan ayuu geedka gobkii ka mid yahay geedka gobka ahi ilaa iyo 40 nooc oo gob abaa adduunyadan ka baxa 2 geed oo isu dhow oo midhahoodu haddana aanay dhadhanka isku mid ahayn baad arkaysaa maa min shajara oo gob ah oo dhadhankeedu geedka kale la dhadhan yahay geed waliba geedka kale dhadhankiisa uu ka duwan yahay waa ilaa iyo waxay yidhaahdaan 40 sinfi oo gob ah baa arladan guudkeeda ka baxa ku darsoo caalamka oo dhan kama baxo geedkan gobka ahi caalamka dhammaantii lagama helo buqcaddan aynu joognaa waa buqcadaha ay ugu badan yahay geedka gobka ah haddana ma intifaacsano geedka gobka ahi qur-aanka makaanad buu ku leeyahay xusna wuu ku leeyahay ilaahayna ashjaarta uu tilmaamay ee qur-aanka uu ku tilmaamay ayuu ka mid yahay ilaa iyo 4 meelood ayaa qur-aanka kariimka ah lagu xusay haadihi shajara waa shajaro qaniimo ah oo haddii alla ka dhigo ummadda ilaahay uu wadeeco dhigay ilaahay uu fadli badan iyo nicmo badan oo noloshooda uu ka awdaya ilaahay uu siiyey ilaahay qur-aankiisa suurat الnajm 2 meelood buu qur-aanka kaga sheegay wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi id yaksha sidrata maa yaksha iyo cinda sidrati اlmuntaha cindaha jannat اlma'wa waa geedka webiyada jannadu ay gudihiisa ka soo baxaan waa geedka 4 webiya adduunyada ugu qiimo badan rasuulku uu sheegay inay ka soo farcamaan waa geedka ilaahay u doortay inuu labagardayo noqdo oo cilmiga adduunyada iyo cilmiga ladunniga ah buu kala soocaa waa geedka uu ku intihooda aqoonta makhluuqa marka laga reebo xabiibkeenna moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii samaawaadka lagu casuumay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo uu horgale u ahaa sayidina jibriil calayhi salaatu wasalaam halkuu dhaafi kari waayey malakul jibriil uu yidhi halkan ma dhaafi kara anigu cinda shajarati sidri bay ahayd maalintaa nebiga la soo dhoweynaya calayhi salaatu wasalaam ee malaa'igta oo dhan heeganka la geliyey geedkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala shacni aanu lahaan jiranoo hore ayuu ilaahay hubiyey id yaksha sidrata maa yaksha waa geed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaameeyey horta weeyaan waa geedkaa agtiisa lagu soo dhoweeyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa geedka malakul jibriil uu dhaafi kari waaye geedka sidrat almuntaha waxaa loogu bixiyey
علمك مخلوقات كهلكا كنت هودا وحي كدن بيا علم الإله أو كليا أي هلكا كسي فرعمة وهي هي مرصد حاد إلهي قرآن كيسو كشيغ سورة الصبا وحو إلهي وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل مر أفرادنا إلهي سورة الواقع وحو وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوط نين عرابية أي الرسول كويمد وحو لنبي الله وقيد قفكي صدبه أيها هدنا إلهي جنة كشاغي مركز يدو محوية هاي جيتك مركز يدو واسيدريغا مركز يدو هالكود بكلا يقضح بولي هاي حنون بدن مركز يدو قرآن أف عربي مياد فهمينين سوك إلهي مخضوض ويري كلمة مخضوض إن سؤاشا نبي محمد لو يدين إلهي ووغا مركز إلهي وحو سير راعي سدر مخضوض وجد قبأة oo qodaxdii laga reebay makhduud waxa laga reebay qodax male geedka jannadu marka geedka goobka ahi waa geedaha jannadu kamid yahay inagu ummad ahaan manaafic badan buu inoo lahaan jiray manaafic badan ayuu inoo lahaan jiray waa geedaha kale oo wuxuu kaga duwan yahay gu iyo jilaal marna ma qalalo وجد عجارا قوية ضيربة جلال يا حاجة ما كلا لها جد كان وجد مركا درتو أي علين تدادسو أي مرها تشوتشسو وقت جاسو يسقو هورا وقت جاسو مرايا وقت جلال درت كلوداني مرا ما بحسو إلا ستر جد كسدري كليا أيام مرها بحيا أو dadka reemiga ay ku eertaan waa dhirta Soomaalidu ay tiraa waa birimageydada dhirtaba gobolaan la jirin iyo ogow lama garaacaan inuu jiro marka geedkan gobka ah manaafic fara badan ayuu bini'aadmiga u leeyahay waxaynu isticmaali jiray waynu ka kibirnay waxaynu inagu lahayn baynu ka kibirnay waxa laga dhigan jiray saabuun qasil buu ahaan jiray timaha waa lagu dhoobi jiray toxobta iyo wixii la mid ah madaxa marka lagu dhoobo caleentiisa qofku wuxuu ka heli jiray deganaansho muhaddi weeye halkan kiniinka muhaddiaadka laga isticmaalayo beddelkeeda haddii caleenta gobka inta la tumo madaxa lagu dhoobo qofku nasiinuu ka helayaa qofkii hurdo waayana hurdu ka helayaa qasil baa la odhan jiray geedka qasilka ah waxaa laynoo sharciyeeyey alxayaa waalamwaat in loogu maydho dadka nooli way ku maydhan jireen nebiyullaahi moxamedna waa ku maydhan jiray calayhi salaatu wassalaam waxaanu ina faray maytaadeenna in lagu maydho xadiid saxiix ah oo bukhaari iyo muslimba ay soo wariyeen wuxuu nebigu odhan jiray ghasiluuhu bimaa'in wa sidrin ku maydha biyo iyo caleengobeed ku maydha maydkiinna biyo iyo caleengobeed waxaad in badan aad arkaysaa culimmada qaarkood ama dadka qaarkood oo fatwoonaya in booskaa ay saabuuntu bedeli karto ما بدلي كرتو سر نبي با كجرتا أمر نبي نو كجرا مركو النبي قلنا عليه الصلاة والسلام ما دوين فربضان أو لقوم ما يران كارو أو أسكا قال إسكا جزولين كربا وقت جيسيبة شري عليه الصلاة والسلام سبن كي الرسول كينا ما دوين فربضان وصابوني أو لقوم ما يران كارو ويالين لكن النبي قوحو أدوري ميت كينا إن لقوم ما يرو sidriga waxa ku jira waxa weeyaan qofka lagu maydho sidrigu dhaqso uma uro haddii sidriga lagu maydho ruuxa jirkiisu dhaqso uma uro sababta oo ah uma qurman ka wada sababta oo ah waxa weeyaan caleentan gobka waxa ku jira maadooyin la dagaalama bakteeriyada waana qaboojisaa jirka bini'aadmiga qabow bay siisaa
manaafic fara badan bay leedahay mana bedeli karto saabuuntu maydka in lagu maydho xataa haddii qofku uu dee waayo waxaa la yidhaha dayax haddii la waayo xidigaha lagu gudaa biyo haddii la waayona ciiddaaba lagu gebagabaystaay meel caleen gobeed laga heli karo iyo sidri in maydkii la yidhaahdo sidriga iska daayo caleen maxaanku idhaahdaa ku maydha saabuun wax sharciga hooy sheegaya ma jiro xikmad rasuul baa ku jirta oo aanu weli bini aadmiga aqoontiisu gaadhin marka ruuxu haddii uu dhinto iyo hadduu nool yahayba waa lagu maydhaa geedka gobka ah waa geedaha ugu hadhka qabow leh geedaha ugu hadhka qabow leh buu ka mid yahay waana geedaha meelaha maxaanku idhaha lama degaanada ah haddii lagu beero hor joogsan kara maxaanku idhaha carradu inay suusho geedka gobka ah waxa weeyaan geedaha ugu horeeya ee waagii hore aynu ka samaysan jirray madagta azand baa la yidhahaa zandi ayaa af carabiga lagu yidhaahdaa madag ayaynu af soomaaliga ku odhan jirray waabaa iman doonta ijiinadan iyo waxan iswadaa ay istaagi doonaan oo qolo waliba ay u noqon doonto asalkeedii ummad waliba waxay hiddo u lahayd ay isticmaali doonto caalamka maanta aynu ku noolahay ummad dhaqankeedii sii daysay ma jirto innaga mooyaane irbad baa ugu yaroo dibadda laynooga keenaa findhicil baa ugu yaroo dibaddaynu ka keensannaa geedaheenniina waa wada qodax berri ka maalin haddii adduunyadani istaagto warshadaheedu haddaynaan ubadkeenna aynaan taariikh uga teginoo war haddii taasi qabsato taasaa looga guuri karaa hadday taasu timaaddo taasaa la yeeli karaa haddaan looga tegin hadhow waxay noqonaysaa uun ummad iyadoo halkaa joogta uun taariikhdeeda la waayo geedka gobka ahi wuxuu ka mid yahay geedaha madagta laga dhaliyo alladii jacala lakum min ashajari alakhdari naaran faidaa antum minhu tuuqidu geedka madagta la yidhaha geedaha ugu fiican isagoo qoyan buu bixiyaa dabka geedka gobka lagu yidhaahdaa waa geed aada u caqiibo badan waa geed dawaa'iya waa geed ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaan kugu idhi ilaahay subxaanahu wa tacaala manaafic fara badan aadamaha u soo raaciyey waa hadiya min allah waa hadiyad ilaahay wuxuu leeyihiin markii la baadhay geedka gobka ah midhihiisa iyo caleentiisaba isticmaalkeeda waxaa laga helaa maadooyin kansarka ka hortaga maadooyin kansarka ka hortaga caleenta gobka intoo la soo gurto baa sonkor yar lagu darsadaa dabadeedna waxaa la gelinayaa ijiinkan yare sharaabka lagu walaaqo sida sharaabkaa loo cabbaa wax side effectsna ma leh ma fahamta maadooyinka ku jira midhihiisa iyo caleentiisa maadooyin baa ku jira ka hortegi kara kansarka hadduu yahay ka naasaha ku dhaca hadduu yahay ka maqaarka ku dhaca hadduu yahay ka maskaxda ku dhaca hadduu yahay ka caloosha ku dhaca kansarrada wuu ka hortegi karaa waxa kaloo inta badan saxaa shaqada calooshaada haddii maalan dheefshiidkeedu xumaado ama aad waxyaalo maxaa naqas badan ku aragto ama siyaabo badan ay kuu ciladayso midhaha gobka iyo caleentiisa haddaad shiidato labaduba way ku anfacayaan gobka waxay xoojiyaan lafaha dhismaha lafaha calciumta ayay aada iyo aada u caawiyaan marka gobku wuxuu dhisaa lafaha bini aadmiga laakiin inagu ma isticmaalno ninka harabiyala jooga ee ooman baan ahay bay yidhaahdaan marka waynu ka qatanay inagu dhib mooye dheef inaguma hayo xataa midhihiisa meelaha hadduu daadsan yahay cidiba quud ma moodo waxau kaloo aada iyo aada u caawiyaa miisaanka qofka isticmaala gobka midhihiisa ama caleentiisa miisaanku kuma kordho takhfiif almiisaan buu kuu samaynayaa geedka gobka ahi caleentiisa iyo midhihiisu jidhkeennu marka uu sameeyo dheefshiidka maadooyin sunaa ka dhasha
وكربون كبدي كميدي هاي سمو بدن باكر لشا oo kaadida aynu soo saarayno sun badan baa la socota dadka qaar kood kaadida ku hadhadha dabadeedna dhiigga inay raacdo sumoobaa laga yaabaa siyaabo badan baa dhiigga bini'aadmiga suni u raacda geedka gobkii wuxuu ka mid yahay maadooyinka maydhi kara dhiiggaaga dhiiggu sifeeyaa geedka gobkii cunitaankiisu waxa uu difaaca bay dhahdaan cunitaanka geedka gobka midhihiisa ama caleentiisoo sharaab laga dhigtaa waxay anfacdaa asaasaqa qofka inaanu ku soo degdegin talafu dimaaq maskaxdu inay dhaqso u asaasaqdo uu ka ilaaliyaa waa caleenta gobka ama midhaha gobka qofku dhaqso uma asaasaqo waxaa kaloo la yidhaahdaa ruuxu hadduu xumadaysan yahay oo caleenta gobka inta loo shiido sharaab looga dhigo waa xumad jabiye waxa kale faa'iideysaa caleenta gobku ama midhihiisu dadka xiiqda qaba intay caleentooda ay qooyaan hadday laabta ku dhoobaan ama ay caleentiisa ay sharaab ka dhigtaan ama midhihiisa xiiqda wuu baabi'iyaa sababtoo ah xiiqdu wax kale maahan waa balqan fara badan oo sanbabada ka buuxsamay sabab doontaan haba keentee laakiin waxa weeye markaa geedka gobkii balqamka wuu khafiifiyaa sida fooxeennoo kale fooxuna balqamka wuu khafiifiyaa waan ka hadli doonaa fooxa insha allah fawaaidis gobku balqamka wuu nuugaa marka qofka xiiqda qaba wuu u fiican yahay waxa kaloo muhiima qofka dhiigkarka qaba hadduu isticmaalo maydhasho ahaan ha u isticmaalo cabitaan ahaan ha u isticmaalee dhiigkarka wuu dejiyaa waxa kaloo aad iyo aad ugu fiican yahay dadka rheumatismka qaba hadday isticmaalaan way ka nafisayaan dadka dhaawaca caloosha qabeed waxaanaynu nidhaahno haddii aan la yidhaha gastrikada qaybta alsarka la yidhaha ee dhaawaca keenta hadduu ruuxu isticmaalo midhaha gobka ama caleenta gobka aad iyo aadbu waxaa kaloo iyana muhiim ah dadkan jiimka cayaaraha ama kubadda cayaaraha ama howlahaa qabta ee muruqyadu ay daalaan gobku aad buu u anfacaa hadday midhihiisa cunaan hadday caleentiisa ismariyaan hadday caleentiisa cabbaan muhim waxa ayana caleentiisa haddii carruurta loo shiday ama dadka aynu nidhaahno gooryaanba caloosha kaga jira somaydaan gooryaanka caloosha aad iyo aad buu u dilaa waa caleenta gobka hareeraheenna ka buuxda haddii sharaab looga dhigo ubadkeenna gooryaan ku arki maysaan dadka atixaal waxaa la yidhaha beeryarada dadka beeryaradu xanuunayso haddii caleenta gobka loo shiido ama midhaha gobka ay cunaan uu ka raysanaya wuxuu siiyaa jidhka firfircooni iyo awood hor loo geliyaa haddii qofku ilka xanuun leeyahay caleenta gobka oo la qallajiyey iyo waxaa la isugu tumayaa geedkan ee qaranfulkan idhaahno dhegayara soo ma taqaaniin qaranful iyo caleenta gobkoo la qallajiyey baa la isugu darayaa daankuu gashanaya waa calashanayaa garaaca wuu ka joojinayaa ilkuhu way ka joojinayaan nabarrada haddii caleenta gobka inta la qajiliyo dusha lagaga daadiyo waxay noqonaysaa dhayme ubadka yaryar oo soo koraya ee dhaqso u kici waaya dhaqso u tallaabsan waaya haddii intoo lagu dhoobo caleenteeda lagu duugo oo cabbaar lagu yaro qallajiyo muddo ilaa 15 cisho ama 20 cisho wixii la mid ah ilmaha wuxuu yeelanayaa awood uu isku taago oo ku lugeeyo marka laftu jabto waxaa la isugu dari jiray caleenta gobka iyo geedka aynu xabagoda nidhaahno geedka xabagoda la yidhaahdo waa dheecaan buuruha ay soo da'aan af carabigana waxaa lagu yidhaahdaa muumiya ayaa lagu yidhaahdaa muumiya waxa weeyaan waa dheecaankii ay masaaridu dalkeenna ka qaadan jirtay ee ay meydka marin jireen meydka la mariya muumiyaha muddo ma qurmi jirin muumiya ayaa la yidhaahdaa dhulkeennu hodan buu ku yahay buuraha xeebta ku sii jeeda baa da'a waa maxaan ku dhaha dheecaan markaad ursato
aad moodaysa habeedda geela uun kamaba garanaysa xabagod baa la yidhaahdaa intoo la ridqo ayaa lafta jabtay marka la kabayo ayaa dusha laga mariyaa iyadoo lagu daray caleenta gobka dabadeedna kamaha alla saaraa 7 cisho ku kamayaa ruux hadduu sida kale u caafimaad qabo lafta ay u xidhiidhaysaa haddii la isugu daro caleenta gobka iyo muumiyaha xoolaha cadhooba iyo finanka ka soo baxa wajiyada ha noqdaan findoob iyo wixii la mid ah haddii la mariyo wajiga caleenta maxaan ku idhaa finankaasi way tirtirmayaan oo way baaba'ayaan marka geedkan gobka ahi waa geed karaamo leh oo mucjiso ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ifka inoogu soo saaray mase intifaacsano haddii sixir la sheegana waa ilaahay waa inaga ka soo warranayoo waxyaalaha lagu dabiibuu ka mid yahay haddii caafimaadkii basharka heli maysid adduunka hal kiniin ah oo 4 cudur ama 5 cudur kaa daweynaya 4 cudur ama 5 cudur ama 6 cudur kaa daweynaya heli maysid laakiin maanta waxaa budh ah oo inala yaala hal geed oo laga yaabo ilaa iyo 20 dawo inay ku jiraan waa farsamadii ilaahiga ahayd oo wax bini aadmi faragelina aanay ku samaynin marka dhirta ilaahay inagu beeray weliba mandiqadan aynu ku noolahay waa mandiqadaha ugu hodansan dhirta waxaana la yidhaahdaa qaacido ah qof kasta dhirta gobolkiisa ka baxda iyo jidhkiisu way isleeyihiin geedaha meel kale looga keeno raad aanay ku yeelan karin ayaa dhirta dawaa'iga dalkiisu ay ku yeelataa marka dhirtan in badan oo faa'iido leh baa taalla geedkaa sidriga ah ee gobkina wax allaaliya wax dhaawacaya dhib uu u geysanayaa ma jirto waxaanaynu isticmaalnay kimikada iyo waxay yidhaahdaan cudurka ma daweeyaan laakiin calaamadaha cudurkunbay qofka ilowsiiyaan cudurka ma daweeyaan laakiin calaamadaha cudurka ayuunbay qariyaan madax baa ku xanuunaya baracetamol baad liqaysaa garaacii unbuu maskaxda qaybtii dareemaysay inuu madaxu ku xanuunayo unbuu firis garaynaya laakiin sababkii madaxa ku xanuuninaya ma taabanayo lidaalik baa waxaad arkaysaa had iyo jeer marka laga hadlayo dhirta iyo faa'iidadeeda shirkadaha dawooyinka soo saara mar walba dagaal bay ku soo qaadaan shirkadaha dawooyinka soo saara raalli kama noqdaan inay bini aadmigu u soo noqdaan dabiicadoodii iyo noloshay ku noolaayeen ee lagama maarmaanka ahayd waxaa laga yaabaa hal ruux inuu u dhimanayo geed agtiisa ku yaal hal ruux inuu u dhimanayo geed agtiisa ku yaal baa suurtagala anigoo musaafira halkaasaan ku gebagabayn doonaa oo xeebaha iska lugaynaya ayaa waxaan ku soo baxay nin xero meel loo ooday marka meel yarba maxaa tuulo yar bay ahayd oo shaah baan kacbo way garanayeen markaasaan sheekh maxamed oo nin baa naga xanuunsanaya markaasaan ku dhimeeyo way tuseen dabadeedna waxaan arkay inuu qabo jooniskii cagaarshowgii matag buu dabaal joogsisanaya waa meel aan dee farmasi u dhoweyn oon dhakhtar u dhoweyn oo waxba markaasaan ku yidhi wareedhe geedkii dhuurta la odhan jiray meelahan agtiina miyuu ka dhow yahay markaasi halkaas ku yaallaa geedkii baan xididkiisuu soo gooyey waan u tuma waan siiye waxaan ku yidhi waan idin dhaafayaa 2 maalmood baan idinka maqnaanayaa geedkaa u karkariya way u kariyeen markii uu cabbay habeenkii uu seexday uu gamay aroortii dambana caadi buu soo sara fadhiistay 2 maalmood baan ka maqnaa waan soo noqday waxaan war ninkii mee markaasina waa ka buurta adhiga ku raacaya marka dhirteennan mucjisooyin badan baa ku jira geed aan anigu u aqaanay in loo isticmaalo qaniinyada maska oo sunta maska inuu dilo ayaa meel cirshiida la yidhaha anoo dahab u doontay beri waa 96 halka imika dahabka laga helay baan waagaa dahab u doonay waa cirshiidaa la yidhaha waa meel geri cidla ah oo hal albaab keliya leedahay inta kale buur baa ku go-an maalinta aan tegay 5 qof keliya ku noolaa albaabkeeda nin baa xero looga ooday
ninkii baan ku war ninkan maxaa ku dhacayo sheekh kaneeca ku dhacday bay yidhaahdeenoo dawana uma hayno deedna geedka soonahda la yidhaahdo soonah baa la yidhaha soonah waa geed xididkiisa loo isticmaalo qaniyada maska iyo abeesada iyo meelaha abeesada iyo maska iyo waxaas yaallana uu ka buuxaa soonah baa la yidhaha baa waxaan ka fekeray war hadduu sunta maska dilayo geedkani sunta kaneecadana wuu dili karaa deedna xididkii baan u soo saaray waan u karkariyey wuu cabbay been idiin sheegi maayo 5 daqiiqo ka bacdi dhidid waaweyn baa ka soo booday waaba soo saro fadhiistay ninkii markaan geedkaas soonahda u kariyey wuu soo saro fadhiistay markii dambena waaba nala cunay wixii naloo kariyey marka dhulkeennan markaad saa u marto waad yaabaysaa khanaa'imta taalla ee aan cidi hoos u eegaynin ee intaasoo dawo oo sunahun lagu soo daldalayo waxay yidhaahdaan kimikadu daaweynteedu albaabna way kugu furaysaa albaabna way kaa xidhaysaa laazim dawada aad cuntee kimikadiihi waxna way ku ilowsiin mashkilad kalena way kugu furaysaa laakiin haddii dhirta nin aqoon leh aad ka martido haddaanu waxba kuu tarin waxba ku yeeli mayso haddaad bariis cunto maxay ku yeelayaa khamuun baa wax ku daweynaa shamaar baa wax ku daweynaa waa khamuunaadka iyo fasaa'ishaa yaryara caadiga haddii aanay waxba ku anficin waxyeelo kuu geysan mayso laakiin kimikadu dhib badan bay dabada ku wadataa marka insha allah u dhugma yeesha khaniimo badan baa dalkeenna taalla ubadkeennuna inaan taariikh uga tagno ayay u baahan yihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu